الحمد لله إلهي بمهدله مهدله بك بعدي وحنو مهدنا قيادها الشعب وينها رير سومالان سيد قروحda iyo qiimaha lahayd ee ay uga soo baxeen marxaladii adkayd ee doorashada ee xanafta lahayd bariyahan dambe waxa saxaafada iyo meediyaha ku soo badanayay war aad u naxdin lahaa oo bulshada dhaawac ku ahaa qaranka dhaawac ku ahaa qofnimada dhaawac ku ahaa wadaniyada dhaawac ku ahaa beelaha dhaawac ku ahaa oo aan dhinacnaba u roonayn aakhira dhaawac ku ahaa ifka dhaawac ku ahaa hadal ka soo yeeray in la yiraahdo Xasan Suldaan Cabdiraxmaan Xasan Suldaan Cabdilaahi la yiraahdo oo uu ka sheegay madal lagu caleemasaarayay boqor beelaha Soomaaliland kamid ah hadalkaas oo noqday hadal dhiif yeeshay riiq xun keenay ummadii kala kaxeeyay guud ahaan hadalka waxaan leeyahay in alla intii uu taabtay iyo intii madasha fadhiday iyo boqorkii la caleemasaarayay iyo qaranka iyo shacab weynaha reer Soomaaliland waan idinka raali gelinaynaa marka koowaad waanu ka xunnahay in marxaladda maanta lagu jiro in ummadda la qaybiyo qabiil lagu qaybiyo qof loo qaybiyo xisbiya la soo dhaafay tartan la soo dhaafay lagu qaybiyo ummaduhu isbahaysiga waa la galaa siyaabo badan baa la isku bahaystaa waa la isxulufaystaa tartan siyaasi ah la isku xulufaystaa ku dagaal baa la isku xulufaystaa waxyaabo badan baa la isku xulufaystaa laakiin hadal waliba maalin waliba hadal bay leedahay maalin aroos baa la joogaa maalinna geeri baa la joogaa maalinta arooskuna hadal bay leedahay maalinta geeridu hadal bay leedahay maalinta doorashada iyo kaambeynka lagu jiraana hadal buu leeyahay maalinta madaxweynaha iyo ay soo baxaana ee qaranka la dhisayna hadal buu leeyahay maanta waxaynu u baahnayn inaynu wada jir qarankeena u dhisano maanta waxaynu u baahnayn inaan ummadda isku keenno wixii ay soo kala dhaxgalay ee doorashada lagu kala tirsaday iyo wixii lagu kala duday ayaan maanta u baahnay sidii loo dhameyn lahaa umaynaan baahnayn in maanta la qaybiyo oo dadka qoloqolo loo qaybiyo oo xisbi loo qaybiyo oo maxay oo group loo qaybiyo umaynaan baahnayn aad baan uga xunnahay in magaca beelaha la sheegto cid aan loo cumaamadin sheegato cid aan meel lagu caleema saaray aanay jirin ay iska sheegato taaj aan la saarin qofku isa saaro bal waxa isweydiina meeshii taajka lagu saaray bal waxa isweydiin leh meeshii lagu doortay bal waxa isweydiin leh ciddii dooratay intaasiba waa waxba kama jiraan walaalayaal dadka arrinkaasi taabtay ee uu sida gaarkaa u taabtay waxaan leenahay noo raalli ahaada sabra idinma qabato ummadda dhammaanteed wax abti gaara isku ahi wax adeer gaara isku ahi ma jiree ummaddu waa wada walaalo reer Soomaaliland guud ahaan wax kala gaara iyo wax kala duwan oo ay leeyihiin iyo cid gaara oo wax soo yahay meeshan ma jirto madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaalilandna gobol walba waa laga doortay degmo walba waa laga doortay cid gaara oo uu hostage u yahay oo uu la haysto u yahay oo abaal gaara ku leh ma jirto oo ummadda u calaamadsanay madaxweyne qaran buu noqday ninka haddii la doorto waan ku doortay lama odhan karo qaranka qabyaalad lagu qaybin maayo madaxweynaha waxqabadkiisa qabyaalad lagu qaybin maayo madaxweyne adiga laftaadan ka raali gelinayna kuma qabato in cid gaara lagu calaamadiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland baa lagu doortay ummadda cadaalad ku dhaqbaan ku leenahay cid gaara laguma dooranin erey nin baan ka hayaa yiri geelu marka uu ooman yahay hees baa loo qaadaa marka la soo waraabiyana hees baa loo qaadaa waa runtii maalinna doorasho lagu jiraayo campaign baa lagu jiraayo hadal bay leedahay maalinta uu campaign-ku dhamaadana hadal bay leedahay annagu waxaanu aragnaa hadalkaasi inuu xukuumadda ku wajahnaa oo carqalad ku ahaa ee aanu beelaha wax kala u jeedine wada laga dhiganayay madaxweynaha toos ugu socday wadadii madaxweynaha ku socotayna ay halkan martay cid walibana way garanaysaa erey siyaasadeed buu ahaa
sidaa la ajligeed walaalayaal ereygaas yaanu qarankeenna duminin yaanu waxba inaga dhex dhalinin walaalnimaan idiin haynaa kalgacayl baan idiin haynaa tol wada dhashay baynu nahay ummad Soomaaliland aynu wada nahay abiyo isir wadaagtaynu nahay wax walba isku abaynu nahay ma kala nihin dad la kala qaybin karo iyo dad wax lagu kala sheegi karo midna ma nihin haddii xisbiya shalay lahaa maanta qaran baa leeyahay برينا حسبي الله نقول دونايو أنت شلي وذا سعتي ما إن كلا بريت ولا إسراع دونتا سيدا لاش لقيت آديات بانو قحنا هاي مر لبعض يمر صدحات بوانو قحنا هاي وانو كحال بحنا إننا وانو كرر لقل لنا بريت ولنا ولا لمن بقدم بين تونتا دورشة كستا ولا لما قدم بيسا مدحوينها يقارن كنسي وحنو ذا الدفاع إننا وذا شرء هدي الله إن شاء الله تعالى هذا الكيغو ما أنت وحد دارنا إن كحال بحنو كرالي قلينو خلخلك إريادة حنفت له أن أقل من أمد اللي قلنا دعشلو لأن أنتو عمامات قاتو سلطان بانا هيراهدو قلبي قيسة يعلوشي سبب مالين والبقى بيالة كوشرتها أمد ميل قين معي إن لغا كورو أو قبيالة لغا كورو أو قبيلك لغا كورو أو وذا شركة يقرأ نماذا لغا شقايو أي ضد نماذا كوشرتها قفكو يا هدي قبيلكي نور علوشة هذا عقلها قبا كوشرو دي قرقين نتشوك مالين والبقى الصور دافين الكاغا نينكي أي كوشرتو كوا بدانو خطبا هدلي باجري والله ميدها دي واسكو ميدون واسكو نوعون كايا كان يكواسبا واسكو وذا نوعونه أقلذي نتشوكو ومدى كور دقاقو إذن وحبا إذن مدرانه أقلذينا الله إذن درتها أنا كان كايا مقعيا كو هدليا نفتي سانو مسؤول كاين اسكا داو عقلو أو مسؤول لغايا هيو عيدي كمسؤول تاي اسكا داو مسؤول كان نقضي نفتي سانو مسؤول كاين مسؤولية نفتي سانو قادي كراينين كوا كلنا والله ميدو كبرعة كهالله سلطان عنا الله يلاقيه وحيلاده وحون عنيسنا والله ميدو كاسينو كن نفتيسا كم مسؤول ما هبانو ملايين يا سيدا كانوا ويان ومدة كداية حنفت الضد ولا لا أنو النهاي وحبنا ومدة حيان وحبا يسكمها إنه أحسابتي ويدا ماذين وحلا وحنا قد حيان ولا اللي ماها إنه مجلتو دولة نمدان أوسي مناي داقضا إلهي بان أوسي مناي دالكان أوسي مناي وحوال بوان أوسي مناي وحانو كو كالابترسين سكوينو يا وحانو كو أبترسين دارنا إنه مجلتو waxaan la yaabay inta reer hebel naabtaan loo yeetan warmid naabtan looma aha ceebta ka daaya ummadda mid naabtan looma aha ummaddu ummad sima weeye mid baa garaca oo inaan dhashay mid gaara inaan gaara dhashay mid waliba waa ummadda reer Soomaaliland walaalayaal aad iyo aad baad u mahadsantihiin hadalkaana waxaan jecelahay wadwadkiisa inaan iska dayno findhicilku maxaaraan baa la yiri ma soo hadalqaadkiisa la isku qabto ayaa arintaas soo hadalqaadkeeda iyo ninka ku hadlay waxaaba soo hadalqaadkiisa ayaa walaalayaal xune yaanay inaga noqonin uun waa la hadlaayo waa la jawaabayo waxba la yiraahdaa iyo nacam hadal baa la tixraacayo hadalkaasi ku qof ka yimid weeyi waa ku qof mas'uul aan ahayn ka yimid weeyi waa ku ka yimid qof aan ummadan iyo qarankan iyo wada jirka midna aan danaynaynin waa kuwan xukuumadda maanta jirta u tulan ka yimid weeyi intaaba annaga sheegayno cadaynayna sida la shirad walaalayaal inaga noqonin waxaynu ka dhigana salaan iyo ujeedo inagoo meel kale u soconna iyo waxaynu wax ku dimino yaani walaalayaal inaga noqonine aan wada jirkeena ka wada shaqeyno waxaan wada leenahay aan wada qabsanno wanaageena aan ka shaqeyno walaalnimadeena aan ka shaqeyno hore aan u soconaynaa dib u noqonin baa leh